Audio Jungle. السلام عليكم magacaygu waa maxamed cabdullaahi waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan u soo dhawow barnaamijkeena hiigsiga guusha ma tahay arday dhigta iskuul ama jaamacad ma kugu adag yahay wax akhriska gaar ahaan akhrinta casharadaada haddii ay jawaabtaadu haa tahay muuqaalkan adiga ayaan kugu talagalay ee daawasho wacan haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa 5 qodob oo aad u fudud oo kuu sahli doona wax akhriska haddii uu alla idmo waxaa jira qaabab kala duwan oo ay dadku wax u akhriyaan xilliga waxbarashada iskuulaadka iyo jaamacadaha laakiin waxaa jira 5 wado oo aad caan u ah oo ay adeegsadaan ardayda guulaha badan ka soo hooya waxbarashada wadooyinkani waxay ku habboon yihiin guud ahaan manaahijta ha noqdo hal buug ama buugaag fara badan waa wadiiqo guud oo dhammaystiran iyo tallaabooyin isdaba yaala oo ay ka faa'iideysan karaan ardayda dhigta jaamacadaha iyo iskuulada iyo guud ahaan waxbarashada noocyadeeda kala duwan qodobka koowaad waxa uu noqonayaa dulmar guud ardayga waxaa laga rabaa inuu si guud u dulmaro maadada uu akhrinayo oo uu isha mariyo isaga oo faham guud ka qaadanayo ha ku mashquulin ereyada cusub ee aadan fahmi karin ha ku mashquulin waxyaabaha aadan garanaynin marxaladan muhiim ma ahan inaad fahanto waxa aad akhrisay muhiimadu waxa ay tahay dulmar guud si gaar ah u eeg mowduucyada soo jiidashada leh sidoo kale waxaad si gaar ah u eegtaa mowduucyada kugu cusub ee u baahan sharax iyo waqti dheeraad ah in la geliyo daawada qodobkeena labaad waxa uu noqonayaa diiwaangelinta su'aalaha si aad caqligaaga u baraarujiso waxaa habboon inaad su'aalo kala soo dhex baxdo casharka oo aad qorato su'aalahaas oo aad filayso inay imtixaanka kugu imaan karaan amaba aad doonayso inaad si gaar ah xalkooda u hesho qodobka saddexaad akhri maadada si dhammaystiran haddaba daawaday waxaad xusuusnaataa qodobkeenni koowaad inuu ahaa dulmar guud oo aan soo dulmarnay cashirka ama maadada innaga oo muhiimadeennu ay tahay in aan faham guud ka qaadanno qodobkan wuxuu noqonayaa akhrinta maadada si dhammaystiran si deggan oo xasiloon u akhri maadada ama casharka isha ku hay su'aalihii aad horay u soo qoratay kuna dadaal inaad hesho jawaabahooda laakiin su'aalahaas oo qura waxa u akhrin ee inaad si ballaaran wax u fahamto isku day qodobkeena afraad waxa uu noqonayaa dib u eegis ku samee waxa aad soo akhrisay markan waxaad xoogga saaraysaa waxyaabaha muhiimka ah ee aad hoosta ka xariiqday soo koob oo meel isugu soo ururi waxa ugu muhiimsan qodobkeena shanaad ahna qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa hubi inaad wax fahamtay maadadii aad akhrinaysay dib ugu noqo waxaa hubaal ah inay jiraan meelo uu mugdi kaaga jiro ama aadan si wanaagsan u fahmin la kaasho saaxiibkaaga waxbarashada macallinkaaga iyo cid kasta oo si fudud kugu caawin karta si kastaba wadooyinkan waa kuwa ugu habboon ee aad hadhow si fudud maskaxdaada uga soo tuuri karto xilliga imtixaanka iyo mar kasta oo aad u baahato adigoo si wanaagsan u xusuusan kara haddaba daawade 5tan qodob tijaabi haddii aad u samayso qodobadan sidaan kuugu sheegay adiga oo joogtaynaya waxaad gacanta ku haysataa guusha waxbarashada waxaadna noqon doontaa ardayga ama ardayada koowaad ee fasalkaaga insha Allah